السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. xilli dowladihii galbeedku ay la rafaadsanaayeen mugdiga jahliga magaalooyinkii islaamka ayaa ahaa isha ay ka soo burqato aqoonta iyo hal abuurada aqoonyahanada islaamka ayaana dunida ku soo biiriyey kumanaan hal abuur oo qayb lixaad leh ka qaatay horumarinta qaybaha kala duwan ee nolosha bini'aadamka. waxaan rabaa inaan kula wadaago dhowr hal abuur oo ka mid ah hal abuuradii ugu qiimaha badnaa ee aqoonyahanada islaamka ay ku soo kordhiyeen dunida. hal abuur ay adag tahay inaan ka maaranno maantay misna ay ku tiirsan tahay nolosha casriga. inta badan dadku waxaynan ka warhayn in aljabro oo ah fikrad xisaabeed asaasi u ah wax weliba oo hoos yimaada farsamo teknolojiyad iyo tan injineeriyadba ay tahay mid ka mid ah halabuuradii ragga islaamka ay ku soo kordhiyeen dunida. halabuurkan qiimaha badan waxaa soo hindisay aqoonyahanka caanka ah ee maxamed ibnu muusa al-khwarizmi oo lagu tiriyo inuu yahay mid ka mid a raggii asaaska u dhigay cilmiga sayniska. ujeeddada ugu weyn ee ka dambaysay in al-khwarizmi uu soo hindiso xisaabtan ayaa ahayd si uu u fududeeyo nolosha dadka xisaabaadka ku hawsha leh, gaar ahaan xisaabaadka asaasiga ah ee qofka islaamka ahi laga rabo inuu sameeyo sida sakada ama qaybinta dhaxalka. qarniga la joogana iska daa sako iyo dhaxal qaybine aljabro waxay fududaysay dhisidda dhammaan buundooyinka iyo dabaqyada dhaadheer ee aad dunida ku aragto. al-khwarizmi ayaa markii ugu horraysay xisaabtan ku soo bandhigay buuggiisa caanka ah ee al-mukhtasar fi lxisaab aljabr walmuqabala, ka oo markii dambe loo turjumay buugga The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. kadib markii uu buuggiisan aadka ugu dhex faafay reer galbeedka magaciisa ula baxeen algoritmi oo ugu dambayn ay ka soo dhiraandhiriyeen ereyga ingiriiska ee algorithm. sidoo kale al-khwarizmi waa shakhsigii ugu horreeyey ee soo bandhiga fikradda in nambar lagu jibaaro nambar kale. cilmibaaris la soo saaray bilowgii sannadan waxaa lagu xusay in ay dunida ka jiraan ku dhowaad 31,097 jaamacadood oo la aqoonsan yahay. inta badan dadku ayaana isweydiiyaa waatay jaamacadda ugu fiican dunida, balse waxay luusan yihiin su'aasha ka muhiimsan midda ay ah waatay jaamacaddii ugu horraysay ee dunida laga hergeliyo. aan kuu sheego jaamacaddii ugu horraysay ee si rasmiya looga hergeliyo dunida waxaa asaastay gabadh muslimada oo lagu magacaabo faatima alfihriya. fikraddii lagu asaasay jaamacaddan ayaana timi kadib markii faatima iyo walaasheedii maryama ay dhaxleen xoolo badan oo uu ka dhintay aabahooda. labadooduba waxay go'aansadeen in ay hirgeliyaan mashruuc u faa'iideyn doona dhammaan ummadda islaamka ah, qaas ahaan kuwa ku noolaa magaalada Fez ee Morocco. ugu horreyn maryama ayaa dhistay masjidka weyn ee loo yaqaan al-andalus. waxyar kadibna faatima ayaa iyadana dhistay masjidka al-qawariyiin, dhisme aad u weyn oo suurageliyey in gudihiisa laga hirgeliyo jaamacaddii ugu horraysay ee laga qalinjibiyo. ardaydu inta badan halkaasi ayaa hooy u ahaa, lagama qaadeen wax qarashaada ee taa cagsigeed waxay isku heleen waxbarasho, cunno iyo hooy bilaash ah. qaliinka ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah halabuuradii ugu waxtarka badnaa ee nolosha bini'aadamka la soo ikhtiraco. qarnigii tobanaad waa qarnigii aqoonyahanka iyo dhakhtarka islaamka ee al-zahraawi uu soo hindisay qalabka lagu fuliyo qaliimada. al-zahraawi ayaa ku qoray buugtiisii taxanaha ahaa ee al-tadriif qayb dhan oo ka hadlaysa qaliimada, qaababka loo fuliyo iyo weliba aaladaha loo adeegsado. in ka badan 200 oo qalab ayuu ku xusay buuggiisan, waxaana lagu tiriyaa buuggiisan inuu yahay midkii ugu horreeyey ee lagu daabaco aaladaha loo adeegsado qaliimada. naqshadda qalbiyadiisa ayaa ahaa kuwa sax ah oo 10kii qarni ugu dambeeyey ma jiraan wax weyn oo laga bedelay. antay kadib markaad aragto qalab ka mid ah qalabyada qaliinka lagu fuliyo, ogow in naqshadda qalabkaasi aynan jiri lahayn ama ay adkaan lahayd in la soo saaro haddii uunan al-zahraawi soo ikhtiraacin. ismaaciil al-jazari oo ahaa mid ka mid ah halabuurayaashii ugu garaadka sareeyey iyo weliba injineeriyadii ugu xirfadda badnaa ee adduunka soo mara ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey ee soo hindisay fikradda mashiinada otomaatiga ku shaqeeya. waxa uu aadka ugu caanbaxay ayaa ahayd khibradda heerka sarraysa ee uu lahaa soo saarista saacadaha, isagoo inta uu noolaa soo saaray saacado aad u tiro badan misna leh cabiro kala duwan. mid ka mid ah halabuuradiisii dunida ka galay baal dahabi ah misna maantay ku xardhan madaxfyada ugu waaweyn ee reer Yurub ayaa ah saacadda maroodiga ee uu soo sanadii 1206. saacadan ayaa lagu tiriyaa in ay tahay hindisadii ugu cajiibsanayd qarnigii dhexe, misna bedeshay fikradda ay caalamka ka qabeen waqtiga iyo qaabka loo cabiro. marka ugu horraysa aad indhaha ku dhufato muuqa saacadani waxaa isla markiiba niyadaadu ku soo dhacaya su'aasha ah waxaanay saacad aynu naqaano ma ekee sidee ayay u shaqaysaa.
hagaag anaa kuu sheegayay dhegayso. ugu horeyn saacaddan ma lahan nambarada ama carabka saacadda ee aynu naqaano ee sheega xilliga saacadda ay ku beegan tahay, ee taa beddelkeed waxaa u taagan haan yar oo ay biyo ka buuxaan oo ku jirta gudaha caloosha maroodigan. biyahan waxaa dul sabeynaya baaldi yar oo qaybta hoose ka duleela misna biyaha ay ka soo galaan. baaldigan ayaana qaadanaya ilaa iyo 30 daqiiqo si uu u buuxsamo. deedna markuu buuxsamo biyihii ayuu ku dhex quusaya asagoo soo jiidaya xarig ku xiran qaybta kore ee mashiinkan. kadib markii xariggan uu jiidmo durbadiiba waxaa qaybta kore ka soo dhacaya kubad yar. si ay u soo socoto ugu dambayn waxay afka u gelaysaa tiniinkan ama maskan ku xardhan qaybta dhexe ee mashiinka, isagoo ugu dambayn ku ridi doona baaldiga kale agtiisa yaala. ninka qaybta hore ee maroodiga taagan ayaa islamarkiiba yeerinaya gambaleel tusinaya in la gaaray nusu saac ama hal saac. inkastoo haddeer fikraddan ay u muuqato wax fudud, xilligaa la joogay xaalku ma ahayn sidaa. keliya waxaad suuraysataa ikhtiraacadda mashiin tilmaamaya wax aan horeyba looga fikirin. ma fududo dabcan. inkastoo aynan kaamirada ahayn hal abuur si toosa uu u soo saaray qof muslima, haddana qaabka iftiinka uu dhaqmo iyo fikradda ka dambaysa qaabka kaamirada ay u shaqayso waxaa soo ikhtiraacay aqoon-yahanka ibnulxaythim. shakil-aan waxaa la odhan karaa haddii ibnulxaythim uunan samayn lahayn cilmi baaristan, maantay la joogo ma jiri lahayn wax lagu magacaabo kaamira. rumayso lama arki lahayn sawirada qaabka daran ee baraha bulshada wareegaya. dhanka kalena nasiib xumo dadka adiga iyo anigoo kalahana ma awoodi lahayn in iska qaadaan sawiro qurux badan, balse alla mahadiye cilmi baaristii ibnulxaythim waxay fursad inoo siisay in sawiradeena quruxda badan aynu dadka la wadaagno. ibnulxaythim ayaa cilmi baaristan sameeyey kadib markii boqorkii lixaad ee dowla alfaatimiya alxaakim biamrillaah uu ku xukumay xabsi guri. maadaama uunan guriga ka bixi karin, waxay u ahayd fursad cajiib ah oo uu ku baari karo habdhaqanka iftiinka. cilmi baaristan wuxuu ku soo ogaaday in marka duleel yar laga sameeyo meel daboolan oo aan wax iftiinah soo gelayn, in faraaraha iftiinka ay ka imaan banaanka kuwa uu soo dhex maraya duleelkan yar ay qaybta kale ee derbigu ku sawiri doonaan sawirada dadka banaankaasi maraya ama waxyaabaha banaankaasi yaala. wuxuu kaloo halkaasi ku ogaaday mar walba oo duleelka afkiisii sii yaraado ilaa iyo xad inay sii siyaadi doonto tayada sawiradaasi ku sawirmaya derbiga. taa oo dhanka kale maantay markaad eegto kaamirooyinka aad arkayso duleelka yar ee yacni dhanka xadisada ku taala ama weynaysada ku taala ay u taagan tahay duleelkaasi ibnulxaythim ku tilmaamay duleel derbi ku yaala. cilmibaaristan waxaa lagu soo ururiyey buugga caanka ah ee loo yaqaano kitaab almanaasir, ka oo markii dambe loo turjumay luqadda ingiliishka The Book of Optics. wixii cilmibaaristan alxaythim lasii horumariyaaba waxay maantay nagu hegtay soo ikhtiraacida kaamirada casriga ah aynu naqaan. markaan taariikhda dib ugu noqono waxaan arki karnaa in rag badan ay sameeyeen iskudayo badan si ay u soo saari lahaayeen qariidado, balse badankoodu waa ay ku fashilmeen. intii yar ee awoodayna waxay sameeyeen qariidado ku kooban oo keliya magaalooyin ama gobollo gaara. balse wixii ka dambeeyey qarnigii 7aad ee milaadiga, kadib markii muslimiinta ay bilaabeen ku faafidda dhammaan caalamka min bari ilaa galbeed, aqoonyahanadii muslimiinta ayaa sameeyey iskudayo badan oo ay ku sameeyeen qariidado ka yaabin doona dhammaan dunida intiisa kale. mid ka mid a qariidadihii ugu heerka waxaa soo saaray abu cabdullah maxamed al-idriisi, isagoo qariidadiisan ku soo bandhigay sharxaaddii ugu dhammaystirnayd ee maabka dunida xilliga, taa oo keentay inay adeegsadaan dhulmarinadii carabta iyo kuwa galbeedkaba qarniyo badan. hal-abuuradan farakutiriska ah aynu soo sheegnay ayaa ka mid ah boqolka iyo kumanaanka ikhtiraacyo ee aqoonyahanadii islaamka ay ku soo beeriyeen dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha bini'aadamka. haddaad eegto in badan oo ka mid a waxyaabaha iyo qalabyada aynu maalin kasta isticmaalno, waxaad dheehan doontaa in badankoodu ay ahaayeen ay hindiseen ragga kan ee islaamka, kuwa oo cilmiga heerkiisii ugu sareeyey gaaray xilligooda. inkastoo maantay magaalooyinka islaamka ay ahaa hooyga aqoonta iyo xadaarada ay baaba'een, haddana dhaxalkii aqoon-yahanadan ay inooga tageen waa kuwo sidoodii u sii waari doona ilaa inta uu eebbe ogol yahay. halabuuradii islaamka ay dunidan ku soo kordhiyeen halabuurkee ugu cajiibsanaa ayaad is leedahay. anigu waxaan dooran lahaa halabuurkii ibnulxaythim ee ahaa habdhaqanka iftiinka. bal adigu jawaabtaada igula wadaag qaybta hoose ee kommentiga. waa inayu muuqaalka kan xiga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.